kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kaftan ka daawataan telefishinka Iftiin TV xaruntiisa ku leeyahay magaalada Boorama daawadayaal barnaamijka waxa idin daadihinaysa anigoo ah Amni Salebaan Cabdi walaalo marka hore ku soo dhawow barnaamijka kaftan oo ka baxa telefishinka Iftiin TV marka hore magacaaga walaal magacaygu waa Cabdirashiid Ismaaciil Maxamed oo magaca dheer Cabtosh su'aashan ku weydiinaya waxay tahay sidoo aragtaa imaatikii madaxweynaha Wiindig magaalada Boorama maalintii Axadii kullee sabab uu yimid jaamacadda uu yimid qalin jabintu yimid marka waxa filan inuu saakana baxay marka wali muhiimka ugu weyn uu yimid waxa weeyaan filayaa qalin jabinta ardayda baxaysa marka taasan hay walaal waa maasantahay adeer ku soo dhaw marka hore barnaamijka kaftanka oo ka baxa telefishinka Iftiin TV marka hore magacaaga Cabdiraxmaan Maxamed Cumar Cabdiraxmaan oo sidoo aragtaa golaha wakiilada ee cusub ee hadda yimiday maxaad isleedahay maxay ka bedeli karaan gobolka Awdal mar walba horta isbedel kasta oo cusub oo yimaaday wuxuu leeyahay dardartiisa marka kuwii hore way caajisay way daaleen 15 sano fadhiyeen kullay dhiiga cusub wax badan ayuu ka bedeli karaa gobolka horumarkiisa hayadeer waa maasantahay okay adeer ku soo dhawow telefishinka Iftiin TV marka hore magacaaga Muuse Sheekh Cali Sheekh Cabdullaahi baa la yiraahdaa adeer su'aashan ku weydiinaya waxay tahay sidoo aragtaa imaatika madaxweynaha uu ku yimid maalintii Axadii magaalada Boorama aad iyo aad bay u wanaagsan tahay ayo waa madaxweynihii dalka isaga xukuma dhulka haddii cid ka cabanaysa haddii ay isaga la soo dhaweynayba waa madaxweynihii dalka weeyada marka inuu yimaado aad bay u qurux badan tahay dadkiisana way isfahmayaan kulli haddii khilaaf jira lafteeda oo maasantahay adeer ka hore waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka kaftan oo ka baxa telefishinka Iftiin TV adigoo ku bilaabay magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Daar Qowrax waana dhawahay telefishinka Cabdiraxmaan oo sidoo aragtaa xildhibaanada golaha wakiilada ee cusub ee hadda yimaaday maxaad is oran kartaa way ka qabanayaan magaalada ama gobolka maxay u qaban doonaan anigoona ka hor dhacaynin kulli waxaan is oran karaa wadad aad khibrad dheeraad u leh in isbedel kale oo cusub ay ku sameeyaan waan rajaynaynaa insha Allah taala hayo haye marka hore magacaaga Cabdilaahi Munaxas Cabdilaahi sidoo aragtaa xilligii ay xukuumadda hogaaminayo madaxweyne Muuse Bixi waxay ku ololeyn jireen inay dhisaan airportka magaalada Boorama haddana xilkiisii waqti yar baa uga hadhay wali haatana meedisi sidoo aragtaa والله أرنك وحنا أركا أرن ضيعان أو دريسن واي مركي أو كل اللي يشري أي حيد إنه جران كا إن بصوت دياردها لكن هذا إنه وحبة شيرين أو وحبة ولدسين لمركا وحنا أركا عنقبتين لجوا هاي قبل كاودا هاي ولا ماسي ولا على مركا ركوس الدو برنامج كفتن أو كبحة تلفزيون كإفتين تي في مركا هرم قاعدة بسم الله الرحمن الرحيم ورتم قاعد واحد أحمد محمد عيناش شون كدو ولا walaal Axmed oo su'aashan ku weydiinaya waxay tahay sidoo aragtaa ama maxaad ka filaysaa golaha wakiilada cusub inay ku soo kordhiyaan magaalada Boorama wallahi horta Ilaahay baa mahadlay qof kasta wuxuu ku dadaalon baraa anna markaa waxaan ka filayaa waxyaabo cusub oo ku warqabin inay qabtaan hay walaal waa maasantahay marka hore magacaaga Saciid Aruure Saciidow waxaad ku weydiinayaa su'aal ah muddadii madaxweyne Muuse Bixi Cabdi ololeynayay wuxuu ku ololeynayay inuu dhiso airportka magaalada Boorama hadda oo waqtigiisii ay waqti yar uga dhaxligu xilka dhigi lahaa wali haatan waxba ka muuqan sidoo aragtaa adigu Muuse Bixi maxaanayde Allah caawiyo marka inuu wax laga yaabo inuu hawsha u dhameystirado arduu leeyahay hawsha dayacanay airportka ee gobolka Awdal uu leeyahay inuu dayaco wax laga yaabo inuu dhameystiro arduu leeyahay adeer maasan ku soo dhawow barnaamijka kaftanka oo ka baxa telefishinka Iftiin TV adigoo ku bilaabay magacaaga waa Cabdilaahi Cabaada layda Cabdilaahi oo sidoo aragtaa imaatikii madaxweynaha uu yimid maalintii Axadii magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal wallahi madaxweynaha si fiican baan u arkaa gobolka Awdal maadaama uu qalin jabinta u yimid Camuud si fiican baan u arkaa madaxweynaha inuu yimid wali inay joogaan malayn soo tagay ما سنتاده marka hore waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka kaftan oo ka baxa telefishinka Iftiin TV adigoo ku bilaabay magacaaga waan dhawahay magacaygu waa Cabdilbaasid Xasan Cabdiraxmaan Cabdilbaasid
sida uu su'aashan ku weydiinayaa waxay tahay magaalada Boorama wadooyinkeeda waxa ka muuqda burbur aad xoogan maxaad filaysaa inuu ka qaban doono maayirka cusub ee hadda la doortay waa su'aal wanaagsan horta maayirka cusub ee hadda la doortay waxyaabaha loo doortay waxa kamid ah bilicda magaalada oo taad sheegtay wadooyinkuna ay hoos imanayaan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inuu wax fiican ka qabto muddada uu joogo waana hawlaha loo igmaday wax kamid ah ayaad rumaasan marka hore ku soo dhaw magacaaga ku dhaw magacaaga Cabdifataax Cadoosh Cabdifataax hadii aan su'aal ku weydiiyo waxay noqonaysaa muddadii madaxweyne Muuse Biixi ku jiray ololaha wuxuu ku ololay jiray inuu dhisi doono airportka magaalada Boorama wali haatan oo xilkiisii iyar uga hadayna lama dhisi arintaasi maxaad leedahay wallahi arinkaasi madaxweynuhu ka gaabiyay waqtigiisuna uu iska gaabay inuu la dhisi karin baan keenay haye wanaagsan walaalo marka hore adoo ku bilaabay magacaaga bal su'aashan ku weydiinaya waxay tahay sideed u aragtaa imaatikii madaxweynuhu yimid magaalada Boorama maalintii Axadii والله مالين aad wanaagsan beed ay ka jirtay qalanjeen magaalada aan jeclayn madaxweynaha ilaa wax walba yimaadaan balse horta gobolkan aan joognay waxa uu madaxweynaha ama dawladdu qabato ma jirto oo aragtay dikadeeda inay jaan tahay imaasoo aan ku weeyeen golaha wakiiladu ay ka bedel doonaan dikada aan oo dhis doonaan dhulka hay wala waa maasantahay walaal marka hore ku soo dhawow telefishinka magacaaga waan dhawahay magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdiqaadir wala su'aashan ku weydiinayaa waxay tahay sidoo aragtaa ama maxaad ka filaysaa in golaha cusub ee hadda yimid ay ka bedeli doonaan magaalada golaha wakiilada Soomaaliland horta anu raygayga waxaan oran karaa waa golo cusub oo u badan aqoon-yahano golay hore u weeyaan muddo badan bay fadhiyeen xilka magacoon waxaan oran karnaa waxbay ka bedeli karaan wadanka rule cusubna way soo saari karaan haye walaal ku soo dhaw marka hore magacaaga walaal magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Jaamac oo ku dhawahay Cabdiqaadir maxaad ka filaysaa golaha cusub golaha wakiilada ee cusub ee hadda yimid golaha maxaad ka filaysaa inuu qaban doonaan gobolka Awdal waxa soo dhan karaa wallahi horta waxa ku jira rag dhalinyaro oo aad u firfircoon oo aqoonti iyo kartiba u leh oo way aragnimo iyo khabiirna u leh waxaan islaha wallahi kuwii hore way dhaami karaan walow aalan uu ku jiro ninka la yiraahdo Maxamed Abiib oo aad u taageero ayo maasinta sidoo aragtaa xukuumadda Muuse Biixi hogaaminayo waxay ku ololayn jirtay inay airport ka dhisi doonto haddana muddo yar baa uga hadhay madaxweynaha xilkiisii xilligii laga wareejinay wali haatan lama dhisin sidoo aragtaa wallahi kulay meel walba loo dhisay kulay horta in dadka ka go'aanata muhiima caqabada koobaad waxaan aaminsanahay dadkii baanay ka go'oonayba xukuumaddu waxaan ka rajeynayaa inay dhisi doonto xil ay noqoto ba hay wala waa maasintahay marka hore ku soo dhaw magacaaga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdishakuur Faarax Cabdishakuur oo sideed u aragtaa imaatikii madaxweynaha ee uu yimid maalintii Axadii magaalada Boorama horta waxay ahayd imaatin farxad ay ku dheehan tahay si fiican waa loo soo dhaweeyay madaxweynaha oo dhammaan bulshada oo dhan qaybaheeda oo dhaway soo dhaweeyay madaxweynaha si fiican baan loo soo dhaweeyay hay'ad romaasantahay walaalo marka hore ku soo dhaw magacaaga walaal magacaygu maxamed jaac maxamed walaalo su'aashan ku weydiinayaa waxay tahay sideed u aragtaa imaatikii madaxweynaha uu yimid maalintii Axadii magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal bismillaahir rahmaanir rahiim haddii aan ka hadlo ugu horeyn imaatika madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yimid magaalada Boorama iyo gobolka Awdal wuxuu ahaa maxaan ku raahdaa waxaan u arkaa inuu ahaa kuna fiican madaxweynuhu sidii ognahay wuxuu ka qayb galay qalinjabintii jaamacadda Camuud dufcaddii 20aad marka madaxweynaha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa inuu ka soo qayb galo kulanka muhiimka maasinta walaal marka hore ku soo dhawow adigoo ku bilaabay magacaaga waan dhawahay walaal magacaygu waa Cabdikariin Carab Muuse Cabdikariin oo su'aashan ku weydiinayaa waxay tahay muddadii uu madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi ku jiray ololihiisa wuxuu ku ololayn jiray oo ku ballan qaadi jiray inuu dhisayo airportka magaalada Boorama wali haatan ma uu dhisin xilligii uu xilka dhigayna waqti yar baa ka hadhay sidoo aragtaa arrinkaas runtii horta waxaan u arkaa waxqabadkiisa waxyaabo badan oo uu ballan qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu beeniyay taana waxa ku cadeynaysa maanta gobolku sidoo yahay iyo dayactirka ka muuqda laameeyadii oo burbursan sidoo kale madaarkii wali muu dhisin waxaad oran kartaa waa dawladdii ugu waxqabadka xumeyd
haye walaa ma santahay aywa daawadayaal intaasi waxa nagaga eeg barnaamijkii kaftan oo aad ka daawanayseen telefishinka Iftiin TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Boorama barnaamijkana waxa idin la socodsiinaysaa anigoo ah Aamina Salebaan Cabdi intaanu barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxa idinkaga tagnaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh